Nabadda iyo naxariista Ilaahay baa korkiina ha ahaato dhammaantiin, kuna soo dhawaada Dalmar Official TV. Ciidamada Somalilan ayaa goor-dhaweed xabsiga u taxaabay fanaanka caanka ah Qamar Suugaani xilli uu maanta soo gaadhay magaalada Berbera kadib markii uu ka soo laabtay safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho. Qamar ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho oo bandhigyo dhowr ah ku qabtay si uu ugu sii gudbo caasimadda Somalilan ee Hargeysa. Safarka Qamar ee dhinaca dhulka uga yimid Garowe ayaa lagu sheegay inuu ka lahaa xeelad badbaado, taasoo uga baxsanayay xabsiga maanta loo taxaabay. Somalilan ayaa inta badan xabsiga u taxaabta shakhsiyaadka caanka ah ee u safra magaalada Muqdisho, isla markaana dib ugu soo laabta Hargeysa, iyadoo badanaa ciidamada madaarka Hargeysa ay xabsiga dhigaan shakhsiyaadkaasi, taasi oo uu ka gows adeegayay Qamar. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka Somalilan oo ku aadan xadhigga fanaankan iyo sababta ka dambeysa xadhiggiisa.